السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تصور واحد حسن كاب فلوك ما أنت وحنا وش أنت مساجد المها معلوه ركوب كسو جريان كوب كي هاد فرحد وسمينا أنا حفلة ريسة والكام يعني ورنينا. What's up guys? Come. Good job. I heard them gelang pertama kali like I was just السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, ما شاء الله. أنت اسكدي برامج كنا بلابننا. برامج كنا قلبت وحكوا بلابننا وحلقوا بلاده وحقوا خير بدن. أيها قرآنك كريمك وحينا نو أقرنا أيو. عبد القدوس أحمد. عبد القدوس أحمد سودو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا عبد القدوس. آيات قرآنك كريم كان نقول أقري الله نقول أنفعه. سيدا هوري الله شاقي وقتها ويري هاي قلبت وحان حقا نسوغني مدي برنامج كان قرح بدن له إن dhiirrigelinno dhalinyartan yaryar waalidiintooda koojajka barnaamijkan noo wado marka waa laga hadli doonaa barnaamijka galabta waa dhiirrigelin in la dhiirrigeliyo dhalinyarteena yaryar barnaamijkan aad wada arkayseen wada daawaneyseen ciyaarta xaqan ku dheelayay marka waxaan galabta xaqan fadhinaa masjid Abubakar Siddiq hallkii ay ku ciyaareen dhalinyarta ay ku ciyaareen masaajidka barnaamijkan lagu qabtay marka sida darteed waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo directorka masjid Abubakar Siddiq Islamic Center Abdullahi Salax si uu asagana door u yiraahdo Abdullahi soo dhawo. Assalamu alaikum. MashaAllah. Every time I start talking, I take a vote. So let's see how many speak English and how many speak Somali, because that will depend on the language I'll speak. So raise your hand if you speak English. Okay, all right. MashaAllah, you can put your hands down. Now we can stick to English. Assalamu alaikum. My name is Abdullahi. I am the director of this masjid. And I wanted to welcome all of you to your masjid. Jazakumullahu khairan for taking the time to visit us. And I want to congratulate the young soccer players on really showing us how impressed we are with their skills. MashaAllah, you guys have really all played well. I know we're also here for a program of a special student who has finished the Quran. And I wanted to congratulate that student because yes, it is nice to have fun. Yes, it is nice to play and interact with your friends. But what's more important is sticking to the religion of Allah Azza wa Jal. So inshallah, make sure that you guys work as hard as this young man to reach that achievement, which is finishing the Quran, finishing the words of Allah, which is a really large milestone. So inshallah, I would like to again welcome you to your masjid. And I'm not going to take any more of your time because I know there's pizza waiting. So inshallah, I'll give the mic back to our host, Usman. Thank you, Director Abdullah, for encouraging and welcoming the attendees, the youngsters.
This program it's called Sunrise Academy Football Club. The coaches are here as well. The parents are here. So I don't want to say much. The parents would say what they see today and what they were being seen. Waxay soo arkayeen, waxay u soo goob joogeen ayaga ka hadli doono, coacheskana ayaga ka hadli doono. Markan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo dadka barnaamijkan wado coach ka mid ah inaan soo dhaweeyo coach Maliko Ahmed inaan soo dhaweeyo oo ka mid ah dadka u taagan barnaamijkan Sunrise Academy Football Club wax badanna soo waday marka asagaan marka hore ku soo dhaweynaya insha Allah soo dhawo coach Maliko Ahmed. Assalamu alaikum boys. Assalamu alaikum boys. All right, I want to just say thank you to two people that really support me a lot in this program, especially my family allow me to give me this opportunity to deal with a young team. I know she need a lot of help at home. She need my support. She need everything. But you know, I took that time for the little kids, and I've seen a lot in our community. A lot of kids have been drafted out a different way. And I thought about this for a long time. I may have a son, I may have a daughter, and I don't want them to end up with exactly the same thing. I just want to give this opportunity for the young kids here from our community, this part of the town, and I don't want them to lose them. I want them to be successful as young men. And some of them have a lot of potential, and all of them have a different potential as well. My goal is each individual to go to college or do something for their life, and that is why I'm doing what I'm doing right now. And the next person that I really want to give a big shout out that support me a lot, never give back on me, is Coach Abu. He did a lot. He did a lot with the parents' communication and stuff. Yeah, he's just doing volunteering. You know, he's not getting anything from any parents. He did a lot. Without him, I couldn't deal with this a lot of kids and give you that time. So he's there for me every single time, give me that support. And I want to say thank you for both for my family, also Coach Abu as well. And the last thing, parents. I want to give big shout out to the parents. Mama Anab, where's Mama Fathi's mom, Amar and Adam. You guys, you know, like I want a lot of parents to come out to see what the kids are. Those three parents been out every single day that we have a match. They be out there in the sun, bringing the kids a lot of Gatorade, water, whatever they need. We want more you guys, more of the parents, especially I won't say the women, but I want to say, especially I want to see for the dads. For the dads, I see a couple of dads, only 3 or 2 dads come out. This is your kids. I know you work, but at least give them a time to come see your kids and watch them. As our community, we are really lack on that because we all see only the women, not the men's. Be part of your kids. Come show support, help them. Sport, school, everywhere. So that's the difference between the people that live here and us foreigners. So come support your kids. Wherever they go, come show up. See what they got. When the kids see you, they give them a lot of motivation. So I want to say that I want you guys to come out a lot, not just the women, inshallah. That's what I'm going to leave. And now I'm going to pass to the host. Big shout for Coach Maliko. Big shout again, guys. Okay, aad u mahadsan tahay coachka Malik wuxuu yiri abayaasha lama hayo maalin kasta hooyaasha joogo marka waa maqleysin abayaasha la soo xaadirin insha Allah hadii la yiraahdo. Big shout out for the moms again, guys. Hal mar hooyooyinka loo sacabiyo. Okay, haddana waxaan soo dhaweynayaa asagana coach kalaata oo coachka kamida coachka barnaamijka Sunrise Academy Football Club wax ka wado coach Abdulqaadir Ali oo loo yaqaano Abu Ali
asagana si uu ugu yiraahdo dhowr eray oo ku habboon meeshan. Soo dhawo coach Cabdiqaadir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إله ما له ماشان كسب لابن واتخانين والدين تدم ويلا سعدان ماشى هذا أمرينه الحمد لله رب العالمين. وحا ما هذا إله كسكو وحا الماء كسود عليه كوتش مليك أو وقت جيسي جود جيسي أو لين أول بو كبهي أو علمه كود عليه ما شاء الله تعالى. sidoo kale ilmaha waxa ku dadaalay haduu waalidiinta ahaan lahayn ilmahan meesha ma joogi lahayn sida arataan Columbus waxa ku soo batay ilmo oo daraagis iyo ilmo hub wato ilmo oo xun anaga marka maxaan maanta isku dayeena ilmaheeni in aan tusno wadadii fiicneed maalinta ugu horeyso aan coach Malik aan la hadlaay ayaan go'aansanay ilmihii inaan u yeelno balwad oo maanta ilaa iyo bari ilaa ay ka weynaadaan wixii ay ku socon karaan aan ka soo dhaqaajino wixii xumaa oo hadda ka socdo Columbus iyo magaalooyinka kale ilaahay nooma ka soo ilmaheeni inay wadadaas qaataan ilaaha noo ka soo wadada oo fiicnaa inuu ilmaheen noo qaataan insha Allah taala waalidiintana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida ay xoog u saareen ilmahoodii mar walba commitment ilmaha meesha keenaan ay ku dadaalaan haddii ahaato qarash haddii ahaato waqti gelin haddii ahaato juhdi iyo haddii ahaato dadaal meesha anaga kuma hayno oo kaliya practice ama kubad waxaan meesha ku hayno waa ilmaha waxaan ka jeegareena iskuulaadka laga jeegareeyaa ilmaha waxaan ka jeegareena quraankan ka jeegareena haddii ilmihii inta ay ku fiicneen maalintu practice imaado ma dheelsiino binaankan fadhiisanaa hadda meesha waxaan ku haynaa oo ilmaha naga mid ah ardayda mid ka mid ah oo quraanka dhan dhameeyay wiliba asigoo maalul practice imaanayo practice ka dheelaayo haddana quraankiisi ma ka mashquulin ma sha Allah quraankiina wuu dhameeyay insha Allah taala hadhoodii ayaa magaca loo yeeri doonaa isagana wuxuu leeyahay abaalmarin oo guud ah hadduu ilaa kala noqdo insha Allah idinkana mar walba waalidiintu waxaan ka rajaynaynaa dadaalkan ay wadaan inay laba jibaaraan oo mar walbana noo garab istaagaan saan ilmahaani wadadan maayna wada ka sii fiican aan geeno insha Allah taala khayr la yansiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوتش عبد القادر iyo coach Malik labadooda aad iyo aad u mahadsanyihiin runtii shaqo fiican ay hayaan Cabdiqaadir sidoo sheegay barnaamijkan ciyaaraha waa barnaamij lagu dhiirigelin karo dhalinyarta isla markaana waxyaabaha kale oo balwadaha kale xun looga leexin karo sidoo sheegayna aniga macallin ayaan ahay dugsiga Qur'aanka marka isma diidayaan in labadooda la isku wado sidoo sheegay barnaamijkeennii ayaan sii wadanaynaa insha Allah hadduu la yiraahdo coachkii waa dhageysanay markana waalidiinta ayagana la'aantood barnaamijkan quruxda badan lama socon lahayn marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo waalid kamid ah waalidiinta barnaamijkan ilmahooda ay dhigtaan ay yimaadaan Sunrise Academy football club ay yimaadaan waalid kamid ah waalidka magaciisa waxaa la yiraahdaa Fahmi Yusuf si uu dhowr eray xaggan ugu yimaado Abu Hamza ayuu ku magac dheer yahay Abu Hamza soo dhawow dhowr kalimo oo ku habboon meeshan galabta ka dheh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciyaartooyga iyo waalidiinta dhammaan waa maasantiin meesha waa dhammaan imaadeen waad ku maasantiin iyo coach iyo waxaan mahadcelinayaa waalidiintoodii oo dadaal galiyay ciyaalka oo ciyaalka guulkan gaareen si fudud laguma soo gaarin guulkan ee dadaal badan la soo galiyay dadaalkoodii waalidiinta dhan waan u mahadcelinayaa iyo coach Abu Malik ما شاء الله thank you جزاك الله كدانا oo ku dadaal ciyaalka oo noo soo barbaartay oo wax balba physical iyo mental ba laga soo dhisay ما شاء الله ku faraxsanahay iyo guulkan inay hadda bilaabeen inaan waxa ku wadaan rabnaa guulo waaweyn inay ka gaadhaan insha Allah saasa u rajeynaya magaca waalidiinta dhan dhamaantiin oo maasantiin ما شاء الله برنامج كسي قروح بدن أيو نوغو سعودة كوتش أبو حمزة فهمي يوسف آدو ومهاتسين هاي أمن والدين تكمدا واي هادنا وحن كسو دوينا يا I want to welcome brother Ahmed. He's going to take it from here inshallah. Brother Ahmed, welcome.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to come here. Secondly, I want to thank our coaches, our brother Mualiko Ahmed and Coach Abdul Qadir, for trying their best to uplift our community. Jazahumullah khairan. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them abundantly for taking time out of their busy schedules to protect our youth and our young brothers and brothers, inshallah. So jazakumullah khairan, brothers. Also, I want to thank the parents as well for supporting the program. Inshallah, without them, this beautiful event would not have been able to take place. So jazakumullah khairan as well. And before we get to the official award ceremony, there's one award that the parents and the coaches have put together. Inshallah, let's be quiet. Muhammad, Abdul Qadir, Khalid, listen, inshallah. There's one special award, inshallah ta'ala, that we want to give one of the players here, who not only is good at soccer, mashallah, he's good at soccer as well, but also took time out of his, playing soccer to memorize his Qur'an and finish the Qur'an and focus on his religion. Because like Director Abdullah said, that is the most important thing, is for you to focus on your religion. And then soccer comes next. So inshallah ta'ala, I want to welcome Coach Mualiko Ahmed to give Abdul Quddus Ahmed this award, inshallah, for finishing the Quran and also being a star player, inshallah. Mualiko Ahmed, tafadhal. MashaAllah, this young man have done a lot. This young man have done a lot. This is what I want to see for each one to indicate. I mean, to study. Okay, and this is one part of example that we have right now. And I want to present this award for him, his dedication of him doing both stuff. So, congratulations for this. We also have another gift as well. And we get you your favorite jersey. Yeah, we get your favorite jersey. Go, you get your favorite jersey. The reduce, yeah. So, okay. All right. This is for you, my friend. Congrats. Okay. Muhammad. Fathi. Muhammad. Salim, Samir, Mahmoud, Abdi, Muhammad, Khalid, Marwan, Mahmoud, Abdul Quddus. Walk. Muhammad, Adi Malik, Ramadan, Adnan, Emmanuel, and Iker. Okay, get in the line. Some can sit. Yeah, some can sit. Yes. Some of you sit. Some can sit. Like Habi, yeah. Sit. Yeah, sit in the front. Come on. Some can sit in the front. Some can stand in the back. Some can stand in the back. If you want to stand in the back, that's fine. If you want to sit, you can sit. Okay. I'm not. Go behind you. Some can sit or some can stand up. Come on. Come. You want to sit or you want to stand? Back. Move. Come on. Get closer to each other. Get closer to each other. Otherwise, you have to sit. Get closer. Get closer. No. Come on. Look at the camera. Okay.